dhalinyarada isxilqaan ee degmada Ceelbu ee gobolka Sanaag ayaa maanta markii labaad ka qayb qaatay dhismaha cusbitaalka guud ee cusbitaal Ceelbu ee magaalada Ceelbu iyagoo maanta ay ku shubeen 5 lowr oo dhagaxa ay kaga qayb qaadanayaan dhismaha cusbitaalkaasi degmada Ceelbu waxaana ugu baaqeen 9 tuulo ee hoos yimaada degmada Ceelbu ee gobolka Sanaag in ay markaasi sidoo kale ay ka qayb qaataan dhismahaasi maadaama ay yihiin magaalooyinka loo dhisayo cusbitaalka guud ee magaalada Ceelbu waana kuwan iyagoo dhalinyarada isxilqaan ka hadlaya sida ay maanta dhagax shubkaasi ugu shubeen cusbitaalka guud ee magaalada Ceelbu waxaan halkan maanta u nimi cusbitaalkii hore loo dhagax dhigay oo jaaliyada noo dhagax dhigeen ama dadka qurbo joogta ah oo halka hore u timicday ayaan maanta xoojinaynaa waxaan maanta halka shubnay 5 lowr oo dhagaxa sidii ragiga horeeyay sheegeen waxaanu leenahay cid kasta oo ka qayb qaadan karta oo deegaanka u dhalatay ama qurbaha joogtay ama dalha joogtay qof walba itaalkii wuxuu ku darsan karo ha ku soo darsado cusbitaalkina hal la bilaabo qolada dibadana oo horeba awalba iyagu noo bilaabo noo dhagax dhigay waxaan cod dheer ku leenahay annaguna diyaar baan nahay waxaanu kaloo aad iyo aad ugu baaqaynaa maadaama cusbitaalkan uu yahay xundurtii magaalooyin badan ku xeeran magaalada Ceelbu ee area-dan in ay tahay xundur waayo markii la eego dhinacyada oo kala duwan sida meesha la yiraahdo sida Gurmale qoryo guban caad saaran Jiicanyo xarka dheere habar shiro mindhicir qoyan iyo gooraan iyo qaar kale oo badanba ay ku taxalluqaan oo kuna xeeran yihiin magaaladuna ayaan lahayn waxaas intaasba ayaan lahayn wax hal cusbitaal ah oo adeeg caafimaad oo guud oo laga ka furan aysan jirin waxaan ugu baaqaynaa in wax laga qabto oo si ugu dhaqsiyaha badan wax laga qabto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh raxiim annagoo ah dhalinyaradii magaalada Ceelbu oo aan magac kale lahayn maanta waxaan isu xilqaanay inaanu cusbitaalkii wax qabadka sidii lagu ballamay inaan wax ka qabanno maanta waxaanu shubnay 5 lowr oo dhagaxa horena waxa uu yilay 20 lowr oo dhagaxa oo ay dadkii ku yaboohay maalintii cusbitaalka la dhagax dhigay ee ballan qaadeen qaybtood ay shubeen anaguna maanta waxaanu maanta ay tahay bishii 22kii bishii labaad inaanu shubno 5 lowr oo dhagaxa maanta waxaanu joognaa cusbitaalkii Ceelbu loo dhagax dhigay annagoo ah dhalinyarada magaalada Ceelbu waxaanna maanta u nimi inaanu ka qayb qaadano cusbitaalka kaalinta dhalinyaradu ay ku leedahay ama ha noqoto wacyigelin ama ha noqoto dhaqaale intaas ayaanu u nimi oo qodobka labaad wax kale u nimi ciidan gacanta ku hayso hawsha wada cusbitaalka inaanu dhiirigelino taageerno isbarbar taagno taara waa u nimi waxa kaloo hadaan nahay dhalinyarada Ceelbu shaha ku jirta wii kasta inaanu wacyigelino culimadiinka aqoonyahanka odayaasha haweenka isla markaanu ka wacyigelino wii kasta wixii laga qayb qaadan lahaa cusbitaalka magaalada Ceelbu inaanu qabanno maanta halkan aanu joogno waa halkii loo qorsheeyay cusbitaalka magaalada Ceelbu inay noqoto iyadoo maanta isugu yimaadeen dhalinyarada magaalada Ceelbu iyagoo ku shubaya lowdad dhagax ilaa 5 lowd oo dhagaxa maanta lagu shubay horena waxa uu yilay ilaa 20 lowd iyadoo horumarka iyo ay ka shaqeynayaan dhalinyaradu iyo dadaalada ay wadaan ay ka mid tahay maanta ay bishu tahay 22 bishii labaad ayaanu halka isugu nimi anagoo lowdadka dhagaxa ah iyo ololihii labaad ay tahay maanta olole ka horeeyay baa jira kana waa ololihii labaad anagoo sii wadi doona aanu inta ku ekayn waxayna jaaliyada ka codsadeen oo hore u dhagax dhigtay cusbitaalkaasi inay dardar soo galiyaan sidii u dhismi lahaa cusbitaalkaasi iyaguna dhankooda ay ka qayb qaadan doonaan waxayna sheegeen shaqada cusbitaalkaasi in ay sii wadi doonaan waa Ahmed Abdullaahi Ciise Ahmed Cashuur telefishinka caalamiga Soomaali Cable TV degmada Ceelbu gobolka Sanaag.